kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa All Banaadir Online waxaan halkan daawadayaal idinku soo gudbinaynaa oo aad daawan doontaan warbixin si gaar ah kaga hadli doono ciidanka dawladda Soomaaliya ee u xil saartay ilaalinta shacabka ciidankaas oo ah kuwa ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka mudana ka howlgalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka tan iyo markii ciidankaas la keenay oo dawladda Soomaaliya ay keentay Muqdisho maxay ka bedeleen amniga caasimadda maxay ciidankaas soo kordhiyeen oo amni ah iyadoo la ogaay Muqdisho in amnigeeda ay wax badan xilligan iska bedeleen magaca ciidanka ilaalada shacabka waa mid ku cusub dhagaha bulshada Soomaaliyeed waxayna dadku maqleen xilli aan sidaas u dheereen waa dhalinyaro kuwaas oo ka howlgala Muqdisho waxay qaataan hubka fudud ee loo yaqaan bastooladaha waxayna ammaankooda u xil saaran yihiin degmooyin badan oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxay ku kooban yihiin ilaalinta ragga hubeysan ee ka tirsan al-shabaab kuwaas oo dadka ku dili jiray Muqdisho waxayna si gaar ah ciidankan u yihiin laan hoostagta hay'adda sirdoonka qaranka dhalinyaradan ayaa waxay yihiin kuwa howlgala maalin iyo habeen shaqadoodana waa ilaalinta shacabka sida magaca ka muuqato ciidankan ayaa waxay yihiin kuwa u badan goobaha dadku iskugu yimaadaan sida meelaha lagu shaaha iyo sidoo kale wadooyinka waxaana intaas sii dheer inaad ku arkayso jardiimanka xaafadaha iyagoo fadhiya qiyaastii ciidankan waa kuwa aad u badan waxayna isku raacaan tiro 3 ilaa 5 ah waxayna si joogto ah kaga howlgalaan meelaha loo iclaamiyay in xilligaas ay tagaan goobo hore waxa u jiray dilalku ay ku badnaayeen oo uu qayb ka yahay suuqa bakaaraha ciidankaas waxay ka howlgalaan suuqa weyn ee bakaaraha waxaana meelaha qaar ciidankaas oo 10 iyo wax ka badana aad ku arkaysaa iyagoo taagan booseejooyinka laga rakaabiyay gaadiidka ayaad ku arkaysaa kuwa qaar iyagoo jooga ciidankan ma lahan asaan lagu aqoonsado oo ay kaga duwan yihiin shacabka balse goor dambe ayay dadku ka war heleen in ay jiraan ciidamo loogu magac daray ilaalada shacabka kuwaas oo Muqdisho ka howlgala dhalinyarada caadigaana waxba aan ka gadisnayn maadaama aysan jirin dareys lagu aqoonsado oo ay xiran yihiin ciidankan markaan u nimaadno amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maxay ka bedeleen ciidankan ilaalada shacabka magacoodu uu yahay Muqdisho sidaan wada ogsoonahay waxa ka dhici jiray dilal iyo qaraxyo qorsheysan ciidankan ma aha kuwa si gaar wax kaga qaban kara qaraxyada dhaca balse kaliya waxay awoodaan joojinta iyo ilaalinta ragga hubeysan ee ka tirsan al-shabaab dilalka ay geysan jireen dilalkii Muqdisho ka dhici jiray aad ayay u yaraadeen marka loo eego ciidanka ilaalada shacabka ciidankan ayaana ah kuwa si gaar ah u eegaya dhalinyarada kuwaas oo ay ku tuhmayaan in ay yihiin kuwa dilalka geysa feejignaan aada ayaana kaga muuqatay ciidankan markii ay joogaan goobaha dadka iskugu yimaadaan meelaha qaar waxay isku jiraan 10 talaabo iyo wax ka badan ciidankan loogu magac daray ilaalada shacabka iyagoona intaas ka taxadaraya badbaadinta naftooda iyo midda shacabka waxay ka duwan yihiin ciidankan ciidamadii hore ee nisa loo tababari jiray oo ahaa kuwa iyaga la ogaan jiray marka ay meelaha soo galaan waqtiga dambe oo habeenkii ayay xitaa qaarkood gaaraan iyagoo aad arkayso in ay ku howlan yihiin ilaalinta shacabka dawladda Soomaaliya horay waxay u hakisay qaraxyadii gawaarida lagu fulin jiray wixii waqtiga ka dambeeyana hawsha ayaa isku bedeshay in qof socda uu isqarxiyo isagoo xiran jaakad ama walxa kale oo laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa waana qiyaastii qof kaliya wuxuu qaadin karo dawladda Soomaaliya taas ma aysan sameyn wali wax ay kaga gaashaaman karto balse ciidankan ilaalada ayaa ah kuwa iyaga aad u yareeyay dilalka waxaana gabi ahaanba ciidankan la sheegay in ay yihiin kuwa si gaar ah ugu fukaray waxaana ciidankan la sheegay in ay yihiin kuwa si gaar ah kaga amar qaata taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Faad Yaasiin ciidankan ayaana lagu qiyaasay tiradooda 200 in ay yihiin kuwaas oo si joogta maalin walba uga howlgala Muqdisho goobaha halis ah ayayna wajahaan ciidankan oo kolkii hore laga cabsin jiray qaabka ay u shaqeeyaan ciidankan ayaasa ah mid kale iyana muhiimadeeda wadata degmooyinka qaar ee ciidankan ay ka howlgalaan ma ahan kuwa ay degan yihiin degmo walba waxa ka howlgala kuwa aanan deganin oo si joogta loo keeno waqtiyada subaxii ah waxayna ka tagaan xilliyada habeenkii ah iyagoona u hoyaada degmooyinka ay ka soo baxeen kolkii hore waana shaqo joogto ah oo maalin walba ay u soo baxaan ciidankaas ilaalada shacabka taasi waxay ka saaciday in ciidankaas iyaga lafsad ahaantooda la beegsado oo ay yaraato dilalkii loo geysan lahaa dad badan taasi way ogaadeen waxaana qof walba oo shacabka Muqdisho uu geeyay xilligan in ay jiraan ciidamo dharcada oo ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka ee nisa kuwaas oo si joogto ah uga howlgala goobo badan oo ku yaala Muqdisho mana u kala socno goobaha ay ciidamadu ku sugan yihiin iyo meelaha aysan ku sugnayn malahan saldhigyo ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir oo si joogto ah ciidankaas ay uga howlgalaan oo lagu yaqaano mana lahan astaan ciidankaas u gooni ah oo lagu arko xilliyada ay marayaan isgoysyada Muqdisho kamana gadisna shacabka xilliga wadada isticmaalaya balse waa ciidan dawladda Soomaaliya ay leedahay kuwaas oo loogu talagalay amniga Muqdisho inay xaqiijiyaan si gaar ah inay kaga hortagaan dilalkii qorsheysnaa waana qayb lagula dagaalamayo dadkii falalka amni darro Muqdisho ka geysan jira oo u badnaa dilalka qorsheysan
marka taa laga soo tago muqdisho weli way ka dhacaan dilal qorshaysan oo loo geysto askar iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya waxaana muqdisho dhawaantan ka dhacay dilkii loo geystay taliyihii ilaalada golaha shacabka kaas oo lagu dilay goob ganacsi oo ku lahaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir balse qof walba ayaa ogsoon in muqdisho ay ka howlgalayaan ciidankaas loogu magac daray ilaalada shacabka kuwaas oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa xilligan aad u yareeyay dilalkii muqdisho ka dhicin jiray badigood ciidankan loogu magac daray ilaalada shacabka ayaa xilligan waxay wajahayaan beegsi cusub oo kaga imaanaya al-shabaab waxaana durbo bilowday in al-shabaab ay qaraxyo u soo agaasimaan ciidankan loogu magac daray ilaalada shacabka waxaa durbo dhacay qarax ay soo agaasintay haweeney isku soo xirtay walxaha qarxa kaas oo lagu beegsaday goob shaaha oo ay ku sugnaayeen ciidanka loogu magac daray ilaalada shacabka waxaana la sheegayaa in sargaal iyo ilaaladiisa xilligaas ay goobta ku sugnaayeen durbo qaraxa marka uu dhacay ayaa goobta waxaa la sheegay in ay soo gaareen ciidamo kale oo ka mid ah ciidanka loogu magac daray ilaalada shacabka kuwaasoo durbo bilaabay howlgalla ay ku baadigoobayaan balse haweeneyda isqarxisay ayaa waxa ay galaafatay nolosha laba ka mid a ilaalada iyo sidoo kale sargaalkii halkaa ku sugnaa waqti badan kama aysan soo wareegin markii al-shabaab baraha internetka ay ku leeyihiin ay soo dhigeen in weerarkaas iyagu ay ka dambeeyeen mas-uuliyaddiisana ay leeyihiin ayna ku qaarijiyeen sargaal ka tirsan ciidanka ilaalada shacabka iyo sidoo kale mid ka mid ah ilaaladii uu watay waa dagaal cusub oo ay wajahayaan ciidanka ilaalada shacabka kaas oo kaga imaanaya al-shabaab maadaama ciidankaas ilaalada shacabka ay yihiin ciidamo hor istaagay dilalkii al-shabaab ay ka geysan jireen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaana ciidankan ay yihiin kuwa xilligan u diyaarsan in ay sii wadaan howlgalka hadafkiisa uu yahay joojinta dadka wax dila waxaas isweydiinta xilligan jirta ay tahay taliyaasha ciidamada nisa ma bedeli doonaan qorshihii ciidanka ilaalada shacabka maadaama qorshahaas uu ku hor yimid qorshe kale oo liddi ku ah kaas oo ay la imaadeen al-shabaab waana isqarxinta qof keligii ah oo sida haweeneydan oo kale ay isku qarxisay ma la filayn in haweeney ay isku qarxin doonto goob ay ku sugan yihiin ciidanka ilaalada shacabka sidoo kalena ma aysan filayn ciidanka ilaalada shacabka in al-shabaab ay soo qorsheyn doonaan qarax ay ku dilayaan ama ay ku qaarijinayaan qaar ka mid a ciidanka ilaalada shacabka balse ciidanka ayaa waxay keliya iska ilaalinayeen in agtooda wax lagu dilo ama meel ay ku sugan yihiin dil uu ka dhaco waxaana taasi markii ay ka hortageen keliya xilligan u soo baxday in ay tahay caqabad kale in qof socdo oo keligiisa uu isqarxiyo lamana filayn in haweeney soo xirato walxaha qarxa ay halkaas isku qarxin karto ciidanka ilaalada shacabka xilligan waxay noqon doonaan kuwo ka baaraan dega qorshaha maalinlaha ah oo ay ku soo baxaan hawshoodan ay ku qabtaan waxayna iska dheerayn doonaan sida la wada aaminsan yahay qof walba oo agtooda soo marin kara ama u soo dhowaanaya waana midda u keentay xilligan in haweeney ay isku qarxisay iyagoo goob ku wada shaahaya daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warbixintii aan sida gaarka kaga hadlaynay maxay yihiin ciidanka loogu magac daray ilaalada shacabka maxayse qabtaan halkee ayayse ka howlgalaan ciidankaas yaase soo diray ciidankan ilaalada shacabka dhammaanba warbixinteenna ayaan kaga hadalnay waadna ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warbixintan iyo la socodka